بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. halkan waa xarunta la talinta iyo horumarinta shaqada walaashay la hadlaysa waa Dr. Safiin. maanta waxaan rabaa inaan wax yar oo ku saabsan maaragtay qiimaha arrimaha bulshada ah inaan halkan ka duubo. waxaan rabaa arrimaha aan rabo inaan meeshan aan kaga hadlo waxa waaye gabdhaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed ma u leeyihiin awood inay waxyaalaha dhaqan xumada oo dalka ka socda wax ka qabtaan si midaysan ayagoo maaragtay si midaysan iyo si xabada ahba maaragtay ama kaliba waxa uga qaban kara ma u leeyihiin awood. su-aasha taas waaye laakiin aniga markaan arrinteeda falaqeeyo ka shakhsi ahaan aan galo haa baan leeyahay. horta haweenka Soomaaliyeed way badan yihiin iskuna maaragtay haweenka sida guud waxay ka sinan yihiin waxa la yiraahdo naxariis, waxay ka sinan yihiin maaragtay inay wax dhalaan, waxay ka sinan yihiin inay maaragtay wax xanaaneeyaan inta badan baa laga hadlayaa. laakiin inta badan kama sinna inay wax bartaan inay wax wada bartaan ayagoo dhan, inay maaragtay mashruucooda uu noqdo mid active ah ummadda oo dhan la jaan qaado. taas kama wada sinna. laakiin inay qoys soo barbaariyaan oo qoys soo banaan bixiyaan ayay horta inta badan ka sinan yihiin oo ilmo dhalaan oo ilmihii soo barbaariyaan oo banaanka keenaan ay ka sinan yihiin. isla sidaas marka waxaan rabaa inaan uga hadlo gabdhaha walaalaheena oo Soomaaliyeed oo wax dhalay waxyaalaha dhaqan xumada oo ka socda dalka. aniga waxaan leeyahay wax waa ka qaban karaan sababtoo ah wiilka dhalinyarta ah oo markaan aan dhalinyarta oo guriga intuu ka baxo soo caba waxyaalaha xun oo qashinka sida qamrada sida wuxuu rabo maaragtay soo sameeya, muslimka soo dhiba, gabdhaha soo faraxumeeya, dariska soo xumeeya, wuxuu ku soo noqonayaa gurigii. mumkin waa suurtagal ayadu wax badan aysan ka ogeyn, laakiin waxay isku dayi kartaa in maadaama wax dhib badan oo xun ay jiraan ay caruurteeda ay cunugeedaas xoogaa dabagal ku samayso oo ka warqabto meeshuu marayo iyo xagga u socdo. midda labaad waxaa jira qadad baa jira oo ilmaha laga tashkiiliyo ayagoo waaweyn 20 jir inta ka hooseysa inta badan ilmaha laga tashkiiliyo oo laga gaalaysiiyo oo akhlaaq xumo lagu baro oo gabdhacay iyo hadii ilaahay ku reediinay iyo hooyacay iyo waalidcay iyo Soomaalinimacay laga baro ayaa jira. ayadaasna waxaa la rabaa telefoonkii iyada u gadaysa walaashii gabadha ahayd telefonkay u gadaysa marka bal in ay telefonkeeda tiraa wariya idib telefonkaaga idib horta ay taa ka saarto ilmihii hadduu 20 jir iyo hadduu 50 jir kulliba ayada hooyo u tahay kama weyna, laakiin ay la socoto tiraa bal waxaad haysid maandhow idib oo ay gacanta ilmaheedii ay ku dhigto oo dhaqdhaqaaqooda iyo akhlaaqdooda iyo qaabku u shaqeynayo qofku la socdo. laakiin waa taas waa marka hore hooyada tarbiyeysan oo diinta islaamka ku dhaqanta oo maaragtay ku tala gashay in maaragtay ayadu nolosheeda ay dhisto. hooyadaas inta badan ilmaheedu way dabageli kartaa. laakiin marka horeba aad filimka iska fiirsanaysay iska cabaysay cabtay maaragtay iska qofku wax iska cabahayay shiishada iska cabahayay qadka waxa rabtid aad iska waxa rabtid iska samaysanaysid aniga leeyma xukumay ana isxukuma adeey sida ilaahay inuusan ka sareyn waxaas oo dhan aad iska dhahaysid wax badan ma qaban kartid. marka waxaan rabnaa awood waa jirtaa oo ilmaha tarbiyada xun leh sida kuwa madaxyada xirta. waxaad arkaysaa rag waaweyn oo madaxyada xiiranayo madaxii dhinac ka dhokokaysan iyo foolxun yahay. waxaa jira gabdhay doonayaan gabdha inamaha oo qurux badan oo marka waxa dhihi karnaa gabdhuhu gabadha marka wiilkan madaxa hoolan oo sharaftiisii iyo quruxdiisii iyo haybadiisii iyo shalaqsanaantiisii iska baabi'isay oo madaxii hoolay oo dhafoorkii soo taagay oo shaydaanka u eg oo maaragtay gaalada iyo midka timaha malmalooqay oo timuhu u xirxiran yihiin oo mushabbah min gaal ah oo ragga maaragtay cayaartooyda qashinka ah oo maaragtay diinta islaamka inta badan bahaysan u eg
gabadha marka inanta ayadana ninkaas u hanqal taagaysa oo dhahaysa casriga jiro waaye waa hooyo Soomaaliyeed biri waxa waaye waxay la kulmaysaa markii asaga ay gacanta ku dhigto waxay la soconaysaa nin aan sunnadii nabiga aan madaxiisa aan maartay haysan oo qaab sunno aan u qurxoonayn oo u dhisnayn hadii la kare marquhu u xirxiran yahay maartay cala xun gacmaha ugu xirxiran yihiin madaxu baqti u taagan yahay surwaal xuma boqol la faqaba waxaan ku leeyahay asaga dhamooleysid wax daran oo meesha maartay alkuleyste u maleysid iyo midda ayada laftigeeda ninka aan maartay aan kala garanay midka cabtooyga iyo ninka wanaagsan iyo ninka sunnada ah oo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhaqmayo quruxda iyo haybada leh ilaahay baa qalbiga daalacda laakiin qofka waxa lagu qiyaasi karaa shabaha marka hore qoomku isku shabaho marka dadka qoomka shaydaanka isku shabahay iyo dadka qoomka islaamka isku shabahay gabadha waa inay kala taqaanaa awood bay u leedahay inay kala garato warbaxna ay tiraahdo ninkan adiga ninka ayada dhisan kartaba ayada waxay dhisan kartaa awood u leh walaal saas ma rabtaa ha aniga ma rabtaa ha ma jeceshaa ha nin xayiho nool ma tahay ha iska xir waxaan madaxaan xumo foosh xun la iska xir dharka nuucan oo quruxda badan qaado sunniga qaado intaas ayada awooddaas ay u leedahay inay sameeyso uu sameeyna waa ku qasban yahay hooyada wiilkeeda waxay leedahay hooyo waxaan iska dhaaf waxaan qurxoon qaado sunnada u xiiro qamradan ay cabaysi iska daa gurigeyga hadii kaleeto hadii yaad u imaanaysaa marka maanaha hooyada ay dilaysaa hadii kale waxa waaye asagii ayadu bari dilaya ku soo noqonayaa anta qamrada ka dhargo alkada ka dhado markay dhaqan xumada dhan ku fiirsato wax kasta ku fiirsato bari wuxuu rabaa ayadu ku sameynaa ama gabadha walaasheeda ku sameynaya marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed awood bay u leeyihiin inay ragga tarbiyayaan waxa isleeyahay aniga ragga waaweynka xataa way tarbiyeyn karaan meesha ugu wanaagsan markay ay tahay qofkii aqli leh ama macquula ama maskax leh ama ilaahay ka cabsanayana rag badan dad inta badan ilaahay waa ka cabsanaya laakiin waxa ka batay maartay shagligiisa qaabku uu yahay marka gabadhu way tarbiyeyn kartaa war ninka ilaahay ka cabso aniga ma rabtaa ha ilaahay ka cabso qaabkan u xiiro xirada sunnada nabiga u xiiro sallallahu alayhi wasallam marka u xiro sidaas hadii ilaahay ku reey waxaan cabis iska daa gabadhu way tarbiyeyn kartaa ninkeeda hadii kale way dhinac bay uga guuri kartaa oo asagii baa wuxuu ku lahaan karaa meeshaas wuxuu ku waadi karaa jacaylkiisa awoodiisa ku weyn karaa ma garatay marka midda kale waxay kale gabdhuhu ay awood u leeyihiin inay maaragtay aysan jacayl la dhisin ragga maaragtay oo foosho xun oo qaabka daran aysan jacayl la dhisin bay awood u leeyihiin maasha Allah waxay kale gabdhuhu awood u leeyihiin inay intay isku soo baxaan hadlaan oo si guud u hadlaan oo yiraahdaan waa waray waxaan dhaqno ma aha ay dhahan isku yimaadaan bay awood u leeyihiin waxay kale awood u leeyihiin gabdhaha wajigooda bedelay oo eber ka dhigay oo afkoodii ballaariyay oo qashinka lagu sameeynayo oo meelaha ragga u furtay ku sameynayaan waxyaalaha badan oo kale soo sharafta darada ah inay xataa inta lagu soo baxo la dhagax tuuro meesha laga saaro kuwa qabrada gada oo guryaha iyo islaameed irdooda ku gada qabrada guryaha meelaha jajabo dhan bay qabrada ku gadaan waa naaga iyo niman kuwaas in la garaaco gabdhuhu ku soo baxaan oo gabdhuhu maartay ku soo baxaan bay awood u leeyihiin walaayaal marka wax badan ayaan sharaf iyo awood u leenahay waxaan rabnaa inaan diinta islaamka hadii ilaahay ka dhamayno waan haysanaa inaan ka dhamayno rabnaa sunnada nabiga qaadano sallallahu alayhi wasallam aan qaadano wiilasheena iyo gabdhaheena aan tarbiyeysano meelaha ay ka dhunsan yihiin aan ka tarbiyeysano qadadka kuwa ku jira oo qadadka laga kristaamiyo qadadka galay aan wax ka niraahno si guud gabdhaha Soomaaliyeed inay maartay u soo istaagaan inay tarbiyada ilmahooda iyo dadkooda iyo islaamnimada dadkooda diinta islaamka ku dhaqma Soomaaliyeed inay maartay tarbiyada wanaagsan ay ku soo duwaan oo u soo istaagaan oo ay ka hadlaan insha Allah marka maantay arrimaha aan soo jeedinayaa intaas baa ugu waaweyn waxaan leeyahay gabdhuhu kaca waxaan tarbiya xumadan dalkii iyo diintii baabiisay oo ummadii muslimiinta ee Soomaaliyeed dhaqankoodii si baaba'aya ka kaca le gabdhuhu ka kaca waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh